Asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada waxaan idinka codsanaa in aad follow noo saartaan page-ka iyo like. Maanta oo Axad ah waxaa la ciyaari doonaa kulanka weyn ee El Clasico kaasoo dhexeeyo Real Madrid vs Barcelona waa kulan finaal ah Super Cup-ka Spain. Waxaana lagu ciyaarayaa garoonka King Fahd Stadium. Waxaa garsoore ka ah Ricardo da Burgos. Guud ahaan inta kulan oo ay wada ciyaareen labada kooxood waa 251 taariikhda kulamada caalamiga ah. Real Madrid ayaa guul badan oo adkaatay 101 jeer, halka Barcelona adkaatay 97 jeer. Waa markii labaad oo ay wada ciyaarayaan xagaagan. Kulankii hore waxaa adkaatay Real Madrid kulan ka tirsanaa horyaalka. Mida kale dhowaanahan El Clasico waxaa ku awood badan Real Madrid markaa eegto. Kulamadii ugu dambeeyey 6 jeer waxaa adkaatay Real Madrid 7 ciyaar ee la soo dhaafay. Barcelona lagama badin 12 ciyaarood oo uu Lewandowski gool u dhaliyay. Barcelona waxa ay ku jiraan qaab ciyaareed fiican 6dii kulan ee ugu dambeeyey lagama adkaanin. Sidoo kale Real Madrid 5tii kulan ee ugu dambeeyey waxa ay badisay 3 ka mid ah. Hal ciyaarna guul daro ayay qaateen. Real Madrid ayaa difaacanaysa koobka. Haddii Real Madrid koob ka qaado waxa ay barbarin doontaa Barcelona oo haysata 13 jeer. 6dii ciyaar ee la soo dhaafay oo ay labadan koox ciyaareen waxaa la iska dhaliyay 23 gool. Aragtidaada ka dhiibo yaa koob ka qaadi karo caawa. Waa ku mahadsantahay haddaa follow noo saartay iyo like.